دمانتينا وأنا سلامة قيادة شرفت الله today waxaan ka hadlaynaa al-shabaab ahlun naar aan ka hadlaynaa nimankan aniga horta waa ka yaabay quraankooda waa badan yahay mar walba oo BBC-da radioyaasha ka hadlayaan faataxay ku bilaawayaan kitaabka quraanka waxaa moodaa inuu ag yaalo at the same time dadkii ever ka dhigeen ever ma fahmino hadda dadkii waa ka soo tageen waxay dhaheen calanka Soomaaliya aaba bedelaynaa calan madow oo ma arkin oo magaca Ilaahay uu dhexda uga qoran yahay ayaan ku bedelaynaa ay dhaheen calanka waxaa wadan jiray dhaheen Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waliba hal calan ma ahay mid cad iyo mid kale wadan jiray camal kan cad magaaladu ka tagu dhigi jiray kana magaaladu ku duulay camal ma arkin oo qaadan jiray marka way fiicnaan lahayd laakiin muu baahana anaga waaye dadka waxa moodaa magaca Ilaahay hadii lagu qaraabanayo moodaa somehow no nimanka waxaan la yaabay war qof muslim oo caadi muslim ah iska dhaha gaalata ka war adig ya gaalata halde ahlu sunna iska dhaha gaalaatihiin Soomaalida kala dhaha gaala iska tihiin hatta aniga waxa marka la yaabanahay calankii waa bedelaynaa hadii dhahan maxaa ku xig mataqaanaa af Soomaali yaan lagu hadlin ku xigto af Soomaali yaan lagu hadal qofkii af Soomaali ku hadlana surka laga jaraa barkee Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam af Soomaali ku hadli jiray af Carabi ku hadlaa marka waa inaad Carabi ku hadalno next way waa soo socotaa insha Allah marka nimankan ahlu shabaab waa niman aan yaaba ugu dhintay aniga hadda bal ninkan nahab ku dhalay ee indhaha guduudan bal dhageyso bal interview-ga BBC-da waa ku gartay arintan la xiriirta calanka xarakada المجاهدون الشباب مدو توحيدك وكرك قرن yahay waxa lagu yaqaanaa dhamaan xarakaadka islaamiga caalamiga adduunyada dhan ka dagaalamaya ama Iraq ama Afghanistan ama Yemen calankaasi miyoonan ahayn mataqaanaa calan u gaar ah dad sidee umada Soomaaliyeed ugu soo jeedinaysan inuu calankoodii loogu bedelo kan waxaan ugu soo jeedinaynaa umada Soomaaliyeed waa dad مسلمين ترى وحى قيادة أما هوغان ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد أيانا كقد يلينا على المدو يمتك عد لبضبا مد مدو كيما استعمالنا على المدو واستعمالنا على العدنا واستعمالنا لبضنا وحن كقد يلينا نبي محمد عليه الصلاة والسلام كتبت حديث النبي محمد لقوري وخاصة الترمذي يا أبو داود غير كود أيونا قص أراري إن علن كامدو يمدعد وسجنا في التوحيد كوكو قرياي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة سي قادن جيرين مركا إسايا سان كقد ضينا أمد الصوماليين وأمد مسلمين أمد مسلمين تنا وحال غربا إلى قد يطوح النبي محمد ولي مذي على النبي محمد إسايا وحنا اللي هاي وما أتانا إله وحنا إله يسوي نطلق أمره يا النبي محمد رعنه وما آتاكم الرسول فخذوه وحي النبي محمد يلي من قاتل ما دام النبي محمد قاتل ونري وحي يلي ما إله ونقول له ياي وحاول إن أنا عند عالة مدو وكمل شعائرتي حتى كتبت لك قرأت عادي صحيحة وكسارتي رايات النبي يقول السيرة هي هاين فكان ولا يوم في هذا هنا الصومال وضد المسلمين علن كان مدو يا علن كان عد علن كان مدو أنت بدن واحد لقوا يقانا حركات دجالما إني قاتان مركا نو كلا شرع علن كان مدو يا علن كان عد إذا كيوا دون إنسان إن عاد صوماليا أي قادته waxaan doonaynaa labadaba inay qaadato maxay labadaba waxa ka sugata Soomaaliya muslimiinta ay shacairteedii tahay labadaba nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam mid ka cadna magaalooyinka iyo waxa nabigu sallallahu alayhi wasallam tagi jiray iyo meelaha maxay ما جوجان ما مولدو أي على كعد استعمال جري على كمدورة وح استعمال جري وحوي عيدا ماذا يجيوشته يهجمياش وده أي قارن جري واستعمال جري لكن لما إن شاء الله وحنوصلنا إن أنو قاعدنا معي النبي محمد واحد كسر كسبنا هذا وحيقول سارين ماذا حيين سارين لكن ما دام لو بنو يكسبنا هذا شيء عن قضايا لو ذو وقاعدنا إلى من طول إلى هنا مجيء sheekh cali miyayna ku muuqan calankan inay tahay calankan lagu bedelayo calanka Soomaalida inay tahay arin xasaasi ah oo laga yaabo inay dad badan idin ka hor keento ma rajaynayo cid muslim inaga hor keenayso هذا عند قالها أنا وأتاجنها إلى نقول الدجاجة وسوقنا ما هي المبادئ هرب بسوق الأصنع يصلي ما سوق الأصنع لكن عند النبي محمد رميسان عليه الصلاة والسلام ربطنا سندي سير إنه لا يصدري دي سير قاطع ربطنا من نظار ما ليس فيه إرادة أنا مثلا الصومالي ضد مسلمين ما دام ضد مسلمين أيهين إلى نظار ما يمر الدين النبي محمد وجعله ضد الصوماليات ما دام أي جعلهن وحاول يمر سندي سير إنه لا يان وجعلهن عندي مركز أقول لاني هاي سو جهلي وكايو واتلمام إنها بل هكون نقطة كتبت السنة هكون نقطة ترميذ هكون نقطة وداود هكون على تو حصافي رسو تاريخ ذا يسيرويك حصافي رسو
عدة مرة ويكسر قنع عيسى بإذن الله تعالى عدة كسر قنع ذنا ووالكنا صفكنا لجريسة عدة مرة أكو قنع ويسا مرة صار تكذبنا وعيد هذا سنة النبي عربيين نبي قلنا وحنا يري وما رغب عن سنتي فليس مني قفك سنتي كلا حتى يقبض معهن مرة وحنا سنة النبي عدة رتمس خلافين عدة ربنا دو عدة ما تقال afhayeenka xarakada shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage oo waramay Maxamed Cadde waa la yaabteen u maleynaa waxa maqasheen doofarkii indaa gududnaa waa imaamada sitay midaamino okay war anaga muslimiin ana umada Soomaali you gaal ku sheegay markuu dhaay ku ka soo horjeedo hadaytan sheegay nimankan gaal iska ka dhaxayaan waan ku raaxaysanayaan oo ku dilayaan anana aakhiro waxay og yihiin oo anaga aan ogeyn dadkan kala Soomaalida marka waxaa kaloo aad u la yaabay nimankan waxay adeegsanayaan ciyaal yaryar ah aniga aan no diinta meesha kaga qoran tahay cunug yara qori ha qaato hadda gaal tago ma aqaan kitaabka meesha kaga qoran tahay waa yaabay waxa isku qarxiyay aniga waxa u maleynayaa aantii dili jiray ardayda jaamacadda ka graduate gareynaysa Muqdisho waa ciyaal yaryar ah oo bumbo nacaskii hadlaayay ciyaal wax ku soo akhriyay waa yaryar ah miinooyin u soo dhiibay saas isku qarxiyaan because qof aqli leh ma laga yaabo oo Soomaali dhiig leh inuu walaalihiis isku maalkin oo qarxiyo sidoo kale waxa dilay waxa u maleynayaa oo dhakhtarka xitaa dilay iyo dadka ma arkin oo aqoon yahaniinta ah waa ciyaalkan yararka niyada laga xaday qof weyn maaha marka ahlu shabaab waxa dhila aniga hadaa dhimataan naarta ilaahay ku fageeyo waxayna mudan yihiin in umada Soomaali meel kasto aan joogno jihad aan ku qaadnabo because anaga ko umad muslimiin aan nahay soo ahaan jirtay ahaan doonto nimankan gararka dhaadheer ee cimaamadaha iyo khamiisyaasha xirtay ee sheekul fulaan la baxaayo yaa aniga ma qaarato wax sheekh ka dhigay waxa sheekh horta ka dhigay I don't know in cadaalad ka dhaca sheekh waa sheekh hebel marka aniga nimankan waa la yaabay waxa u moodaa diinta ay inay bixiyaanba diinta islaamka ay inay bixiyaan u moodaa ee qofkii rabaana siiyaan kii kalena ay dhahan gaal tahay بمثل عبد الله يوسف هذا دعاء كبيرة محل ده متقنا شيخ عبد الله يوسف هذا ورجع ده كان إنما عادي ما نمنا الله يابي واي إلهي دم بيقول أنا جش إلى ليو وحأركي سا شيخ منصور مقلسا ورانا الصومالي أنا هي مقعة محمد وكبلا ما عبد الرحمن وكل ماله ما فاهمينه فرح جامع وسمي مقعياش ساقمنا مقعيدا عرفت أنت أنا قصوا قلنا أنا أوجن عرب ما يدي إنما مكت مركا كان أنا قال يا حتى لو حاول ده نك كل واحد حكومة عرب على ده ما كان جعله يوسف قراد محمود هاي هذا كهر وحالي يقول يا بدنا ودهاي او Soomaaliya ka dhaxay waxa ahayd laba qol is dagaasho dhahay Muqdisho markaas mid BBC la soo xiriireen ka saala yani xal dhahay qabla hebel ay wuxuu dagaal ku qaaday la dagaaltamay niman kale cusub aan ka seen kuwi kale BBC soo dhahay waa magacaygu sheegay because aniga la bartaan rabaa moogta hadda markii nimankan niyo waxa waaye جيمكي واحد ماضي قبل واحد ماضي مدامينه هذا وحي تاجن تعالن كيلو الدجيو اللغة الصومالية ولا بدل دونا في يجرك وحلي دونا في عربي نكون هذا لنا ما دام يا أنا أمة مسلمين أنا هاي لكن لا عادة كل الرأي وبالله التوفيق next video next week أنا سوي دين دونا حالك أنا غيرنا كهلا مركا نوكل ولا خيري